السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. in koob biyo diirana iyo malqacad kurkuma aad isku darto oo aad cabto subaxda hore. Cabitaanka noocani wuxuu aad u wanaajiyaa caloosha, isagoo meesha ka saara cilladaha ku yimaada dhinaca caloosha sida dibirada iyo gaaska caloosha. Dhinaca kalena cabitaankani wuxuu aad u xakameeyaa khatarta dhiigkarka, waxaanu la dagaalamaa xanuunka dadka waaweyn ku keena asaasaqa ee Alzheimer. Dhinaca kalena cabitaanka noocani wuxuu aad u qurxiyaa muuqaalka sare ee jidhka, waxaanu isku dheelitiraa sonkorta jidhka, waxaana lagula taliyaa dadka waaweyn inay isticmaalaan cabitaanka noocana isagoo aad ugu fiican meelaha kala goysyada ah ee jidhka, gaar ahaan markay dadku waaweynaadaan. Qaabka loo diyaarinayaana waa in malqacad kurkuma oo aad budo ka dhigtay aad ku darto koob biyo diirana, kadibna aad xoog isugu walaaqdo oo aad cabto subaxda hore quraacda ka hor. Ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama iyo dembi dhaaf. Aad baad u mahadsantihiin.